wixii inta ka dambeeyay qolka hurdada macnaha hawshii iyada hayda la socday qodobka hadaba culimadu way ka digaan oo khatartiisu leeyahay waxa leedahay ay sheegaan hadii jeer wariyaan qisas fara badan qisaska qaar koodna wad ku arkaysaa buugteeda baraara iyo kan kaleba wad ku arkaysaa qisas khatar ay sheegaan oo dadka qaar kood ku dhacday hadan laga gaanshaaman habeenka qaadi shuruux qaadigii loorin jiray sheekh weyn oo caalim ah wuxuu yiri habeenkii koowaad inaan baan gursaday buu inantii markii la isu kaayay soo galay buu habeenkii salaam markiiba waxaan doonay buu wixii rag dooni jiray gacantii baan ku taag deetana waxay tiri calaamahli wariya u kaadi wallahi buu kulay waqtiga aad arkaysay muxaadarigu kaliftay inantii istiftaax bay bal samaysay ilaahay xamdigiisa ku bilaabatay waxay tiri waxaan doonayaa inaad ii sharaxdo waxaad jeceshahay iyo waxaad neceb tahay deetana wuxuu yiri ninkayga caynka aha ana waan fadhiistay muxaadaro labadana ka daba galay wiil inanta runtii waxa ii sharaxday waxaan u sharxay wiil waxaan jecelahay iyo waxaan necabahay inantii caynka ahayd 20 years ayaan wada joognay oo one day aanan isku dhicin hal maalin isku maan dhicin bud xaga kale markay ka hadlayaan waxay sheegaan nin iyo gabadh ayaa habeenkii aqalgalkoodii bay yiraahdeen baa ninkana wuu soo galay gabadhina wuu soo galay kadib waxa dhacday mid walba marihiisii buu dhigtay mid walba saacad buu deetana leer qabsaday oo aamusay inan kala dhinac muu leerkii u qabsaday inantana leerkii baa qabsaday dabeetana markay saacad kala aamusnaayeen buu ninka ku yidhi naa hooyadaa meel ku soo sheegin markaas ayadana inta naxay tiri oo adiga baa meel ku soo sheegin dabeetana mid walba isagoo naxsan buu dharkiisii dib u gashaday sidii baa mid walba dhinac u seexday habeen labaadkii kadalik habeen saddexaadkii kadalik ay sheegaan culimadu hadduu qofku aanu runtii ka gaashaaman inay khatar ku iman karto aadaabiyadka waxay sheegaan runtii uu buugana ka hadlayo aadaabta oo mariya dhigashadu way ka hadlayaan oo qodobada ayuu ka mid yahay wuxuu baahan yahay laftigiisu isluub waxay sheegaan isluubkaas in ma garanaysaay uu yahay isluub aan mufsic ahayn hadduu markiiba sidii wax waalan dharka tuurto waxaa dhici karta in labadii qof kala infiraan kala carraan oo waa sheegaan qisaska ay soo wariyaan nin markii habeenkii aqalgalkii buddatana sidoo degdeg dharka u tuur deetana gabadhiiba kadigaas ka but dib waa la isugu taageli waay qisas badan oo caynkaas ay culimadu muslimiintu ay soo arooriyaan oo fashalka ka dhaca habeenka leelatu safaaf inuu keeni karo sababi karo burburka reerka inuu sababi karo marka runtii habeenka in aad looga gaashaanto aadaabiyadka waxa kamid ah runtii uu ka hadlay buuggeenani ducada in lagu ducaysanayo salaada la isku xidhanayo halka markii la yimaado sida kalena nadaafada ayaa iyaduna ka qayb qaadanaysa oo aadaabta loo baahan yahay kamid ah ma aha inankii inantii oo dhamad weyn oo mid walba iska badan yahay oo dhiis ka soo urayo in la isu yimaado aadaabta kamid tahay in soo nadiifiyo Abdullah ibn Abbas wuxuu lahaa inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li budi anigu xaaskayga waxaan isugu qurxiyaa sida iyaduba isugu kaysay qurxiso adigoo iska goyn oo dhiis ku ka daayana aadaabta ma waxa kamid ah aadaabiyadka loo baahan yahay inuu qofku soo cadayasho inuu la yimaado cadayashadu waa daruuri jiddan waana shayga koowaad ee nabigu ku bilaabi jiray kaleey salaatu wassalaam markuu guriga soo galo cadaygu ku bilaabi jiray way hawlahan la gelayo ee la guda gelayo waxay u baahan yihiin af daayira haysta oo af soo uraya aan haysan hadii kale akhlaaqiyadka loo baahan yahay iyo waxyaalaha loo baahan yahay suurtagal ma noqonayso inta hadii la dhaafo buugu oo buuga ah qolka hurdada qisooyin iyo cilmiye ku duugan waxay culimadu aad uga hadlaan oo inagu hadaynu Soomaalinahay aynu aad uga jahal sugannahay maxaa la sameeyaa hadaba mushkilad baa jirta ma ogtahay waxa dhacda inay isku boodaan ayaa dhacda taas ma aadaab islaamku ogol yahay buuguna aad buu uga hadlayaa qodobadaas waxa loo baahan yahay in si tartiiba بمعنى waxa weeyaan wax badan baa ka horeeyaan culimadu waxay sheegaan
ciyaaraha buugga waxaad ku arkaysaa oo ku yaala ciyaaraha ka horeeya galmada waxyaabaha ka horeeya waxyaalahaas markaa laba qaybood baynu kala qaadinaa habeenka leylatu zafaaf ama habeenka aqalgalka oo de horta iyada in la ilaaliyo oo xaaladda ay soo cusubeen labadii qof in habeenka jawiga aad loo ilaaliyo waa loo baahan yahay ciyaarana waa ciyaaro mar walba joogta mar kastoo hawshan la qabanayo ama la isu tegayo waa runtii aadaab loo baahan yahay aadaabtaas waxaa ka mid ah ciyaaraha culimmadu waxay ku sheegaan way fara badan yihiin ciyaarahaasi qowlla way noqon karaan ficilla way noqon karaan ninku markuu doono xaaskii inuu tago inuu ku boodo un maaha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sida xayawaanaadka inaan la isugu boodin sida xayawaanka yaanu midkiin midka kale ugu boodin laakiin maxaa loo baahan yahay waxyaaba badan ka horeeya ciyaarahaas waxaa ugu muhiimsan oo ninku markuu doono hawshan inuu galo uu samaynaya inuu ku bilaabo dhunkashada aad bay culimmadu ammaanaan weliba ciyaaraha inagu hadday Soomaali nahay aad uma yaqaanaan hawshan waayo soo hadalqaadkiisaaba khatar laga dhigayba iyadoo diinta islaamku iyo fuqahada culimmadu iyo muslimiintu ay kutubta kaga warbixiyaan ayaa inaga lahdaa bes war inanka yeelinta hal isku geliyo war way yaqaanaan xayawaanku way yaqaanaan sida la isugu tago dabeetana waxaanu aadaaba oo culimmadu ay ka hadleen oo kutuba ay ka hadleen cidiba kama hadasho waana ta keenta hawlaha haddii la isku fahmi kari waayana waa arrin adag sida loo xalliya xataa waxaa dhacaysa inanku inaanu ka hadli karin hawsha hadduu ka cabanayo inantu hadday hawsha cabasho ka qabtana kama warbixin karto laakiin waqtigii rasuulka calayhi salaatu wassalaam isaga oo buuggu wuxuu ka warramayaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka xishood badnaa maxay inanta gashaantida ah aad buu uga xishood badnaa kaana ashadda xayaan min alcidraa arrinka caynkaasina umuu diideen haddana inuu ka hadlo hawlaha jimaaca in laga hadlo galmada may diideen oo gabadh baaba nebiga u timi calayhi salaatu wassalaam iyadoo ka ashkatoonaysa ninkeedii bay ka ashkatoonaysay oo xubinkiisa taranku yahay mid jilicsan xubinka tarankiisa jilicsan saasay ka cabanaysa saa daraaddeed waqtigii rasuulka macnaa nebigu isagoo xishood badnaa hawlahan hadduu qofka cabasho ka keeno cabashadiisa waa la dhegaysan jiray inaguna waxaan lama soo hadal qaadi karo oo waxaaban filayaa buuggeygan markii koowaad aan soo sameeyey dadka qaarkood inay naqdiyaad ay ku sameeyaan inkastoo dad badani ay xaqiiqatan soo dhaweeyaan ciyaarahaas waxaa ugu afdalsan oo ninku markuu xaaskiisa u tegayo alqubla ma dhunkashada nusuus buu buuggu qaadanaya waxaa ka mid a xadiiska jaabir ibni cabdillahi alansaari qaala kunna maca annabiy sala allahu alay wasalam fii ghazwa فلما رجعنا وكنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا أم طيبا قلت بل طيبا قال هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها وفي رواية قلت طيب قال ما لك وللعذارى ولعابها وفي رواية أخرى هلا بكرا تداعبك وتلاعبك وتضاحكك وتضاحكها الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بل في صلاة dhunkashada buuggeyga runtii badhaalaha guurkana qisas baan soo qaatay mudxikaada oo qofka ku qoslinaya inbaa waxa leeyahay markii uu guursaday buu gabadhii doonay inuu guursado intaasoo muddo baryay naa walaalan ku dhunkado waasay tiri waa kitaab quraan anagu etana maantii dambe waxa leeyahay inta abaartay bay tiri hooyo ku go intay dhabarkiisa ku tiri dhabankiisoo tuwatay aan hooyo ku go anoo kitaab quraan namuud dadka caynkaas ee ka dhacsan hawshan caynkan ah iyo islaamku sidoo uga hadlayo sidee noloshoodu ku wanaagsananaysaa gaar ahaan markay yihiin qolkooda hurdada xadiiskan u fiirso jaabir ibn cabdillaahi wuxuu leeyahay nebigaan la joognay sallallahu alayhi wasallam waqti duulimaada ghazwa markaanu soo noqonnay ee madiina aanu ku soo dhownahay ayaan rasuulka allow in xadiisu cahdin bi'urs nin waxaan hay dhawaan aroos kale de aroos baan hay rasuulka allow markaa nebigu wuxuu ku yidhi waa miyaad guursatay ها ما شاء الله ما قشانتي ما تقول مس عرمل قاسير ما رسولك الله عرمل بنكوس رسولك وحيدي محاد إنا يرجو سميت قشانتير ما تقول تدوري كل عيارته تلاعبك أدنى عيارته وفي سهدة ودي رسولك إن متكين سلا حيوانكم وجبوا ده بريان ومتكين وجبوا ده
culimadu waxay yiraahdeen halka waxa laga qaadanaya xadiiskan koow ciyaaruhu inay ka horeeyaan hawlahan xad guusan weeydi buudi adna kula ciyaarta adna ciyaarto riwaayad kale waxay sheegaysay war maxaad mooday hablaha reer gashaantumaha iyo dhereerkooda lucaabka waxa la qofka afkiisa waxa ka soo dareera halka waxa laga qaadanayaa baa la yiri culimadu yiraahdeen in horta dhunkashadu waa shayga ugu horeeya wax badan baa ka horeeya moogtay waxay sheegaan isu tagana ama galmadu waa numberka ugu dambeeyaba oo marka ugu dambeeyaba bal waxay sheegaan qolooyinka aad u diraasay hawlahan culimadu markay ka hadlayaan 15 daqiiqadood ugu yaraan ama 20 daqiiqo ciyaaruhu yani ka yaraan bal ka waran hadaba nimankii caraabta ahaayee miyigo kale waxa la sheegaa habeenka ugu horeysa qaarna meelaha ay soo galaan bal inta guriga dhinaciisa soo galaan deetana waxa la wariyaa ku boodin markay ku soo gasho deetana waa la isku boodaa halkaas cirka la soo baxaa oo garanmays islaamku ma ogolo waxyaalahaas oo garanmays wuxuu nabigu yiri maxaad hablaha gashaantimaha iyo lucaabkooda dhereerkooda mood ya marka halka waxaan ka qaadanaynaa koow inay yihiin mulaacabaad habluha yar inay fiican yihiin baa la garanaya ay carmalka ka fiican yihiin baa laga qaadanaya carmalka ay ka fiican yihiin waayo sababtu wuxuu rasuulku cileeyay way ciyaar badan yihiin riwaayad kale waxay sheegaysaa maxaad u guursan weyday inay yaro ka qoslisa ya adna aad ka qosliso waliba waxa kale laga qaadanaya halka lucaabka rasuulku sheegay in ma garanaysay xadiis kalena waxa baa calaykum bil abkar bil balay ku fiirso hablaha yaryar ogaada rasuulku waayo iyaga af macaan buu acdab afwahan afkooda maxaa laga doonayaa baa laga yaabaa iswadiso waxa laga doonayaa islaamku wuxuu qaba aadaabiyaadka kamida oo laga yaabo inaga odayaasheena hore Soomaalidu inay kaba yaabaan waxa banaan afka waxa laga doonayaa ciyaarihi bay ku jirtaa oo dhunkashadii in garanaysaa carabka la iska muudmuudsan karo ayaa laga qaadanayaa beeraha xadiiska aclabu afwahan in way af macaan yihiin xagga raximta iyo ilma galeenkana waa kuwa raximtoodu ay saafi tahay xagga iqbaalka iyo soo dhaweyntooduna waa mid ay kulushahay si kulul baa laga yaabaa inay ku soo dhaweyso soo garanmaysid inta yarna way ku raali yihiin rasuulku kaleey salaatu wasalaam wa arda bil yasir marka waxa kale oo laga qaadanaya xadiiska in marka qofku ciyaaruhu aan ahayn dhunkashooyin kale dhunkashooyinka culimadu waxay sheegaan buugu ka hadlaya sheekada oo faahfaahsan buugaad uga helaysaa aan ugu tala galay laakiin inagu waa un kalimaad yar baan uga jeedaa ciyaaraha dhunkashada waxa kamid ah ama dhabanka waxa ugu fiican beeradan dhabanka iyo afka in la iska dhunkado jirka inta kale waa la iska dhunkan karaa beeradan meel kasto jasadkeeda kamid ah ninkuna uu ka dhunkan karaa gabadhiisa gabadhuna ka dhunkan kartaa carabka oo kale xadiis baa ku soo aray inuu rasuulku xasaskiisa carabka uu ka mudsan jiray xadiiska laftiisa laga fahmaya oo fiirso wa fi riwaayatin kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu ahaa mid ehelkiisa la ciyaara oo wayuqabbiluha dhunkaduha abu daawud wuxuu ku warinayaa sunankiisa wuxuu ahaa kana yuqabbilu aisha dhunkaduha soo garanmays wayamussu lisaanaha carabkeedana muudsada rawahu ahmed waxa laga yaabaa inaga halka hadaad u sheegto dadka qaar kood ay ku yiraahdaan war waa dhaqan gaalo ma islaamku ciyaaraha kamid tahay adeer dhunkashadii in carabkii la iska muudmudsado waa islaamku qaba ma diidayo nabiga kaleey salaatu wasalaam kana yuqabbilu aisha wayamussu lisaanaha ونقو مراجع إمام أحمد باورني حديثك إيه أبو داود waxaan aad ugu boorinayaa runtii oo buugani aadaabiyadkaas aad baan ugu taraxtagay waxa kamid ah aadaabta uu sheegayo hawlahaas marka la qabto ilaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo inta ugu yartay baa la qabanaya hawlahaas waxay sheegaan oo kale ciyaaraha waxa fiican bay dhahdaan oo kamid ah ciyaaraha taas waa dhunkashadii carabkii oo la isticmaali karo waxay kale sheegaan culimadu Allahumma salli ala Muhammad inay kamid tahay inuu qofku ku ciyaaro xubneeda kamid waxa kamid ah meelaha lagu ciyaari karo bay sheegaan sadiyeenka ama naasaha oo ama taabto culimadu way isweydiiyaan xataa inuu naaska afka gelin karo culimadu waa ka helaysaa way ka hadlaan inaan xaraan ahayn ninku gabadhiisa xagga naaska ka isticmaali karo nooc ma ciyaara ويدنا وكمد عياره وحكمد بكلين عياره إن قال لي أتوتشوا أو تتابطوا أيها كمد هرت ميد أجو
islaamku zinadii wuu xarimay kol haddii laga xaaraantumeeyey gabadhii markay xaaraan tahay inaad jidhkeeda taabato ood u dhowaato laga xaaraantumeeyey ilaahay markuu xalaal iskaga kiin dhigay wax allaale bimacnaa wax ka xaaraana islaamku laba wuxun buu sheegayaa eega daba fiirso marka laysu tegayo laba qodobun iska ilaali xagga dambe in laysaga tago wax xaraam si fiican baan uga hadlay buugaygan iyo ka kale badhaadhaba inkastoo badhaadhaha adigu si faafay waxaa kaloo iyaduna xaaraana gabadho caado leh inaad u tagto laakiin wax allaale wax xorriyatul waxaad haystaa mawduucan xorriyad kaamilo qofku haysta wixii sharcigu diidun baa inaga xaaraantima waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay fa'tuu xarthakum anna shi'tum waan u tegi doonaa jamaaca laftigiisa waan isku taagi doonaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaalihii ka horreeyey waxaa ka mid ah ciyaaraha buuggaad aad ku arki doontaa in la taataabto naasiheeda jidhkeeda inta kaloo dhan aad ku ciyaarto ka mid ah waxaa ka mid ah xataa ciyaarihii buu ku leeyihiin hadal fiican inaad ku wada hadashaan xaalaadkaa ma garanaysaa hawluhu socdaan inaad hadalle macmacaan oo dabdabacsan laysku hadlo hadal jafaafa laakiin haddii feer iyo laad jidha ugu horraysaba laysku bilaabo oo qac iyo qac ay noqoto waa weeyaan waxa meesha ma yaalaadan wax nololo markaa runtii waxaan uga jeedaa oo inagu aynan aad u aqoonin oo culummada aad arkaysaa muslimiintu ay ka hadlayaan jimaacu ama isu tagu oo ah labada xubinoo laysku aadiyo inay tahay meelaha ugu dambeeya laakiin ay fiican tahay in ciyaaro badan lagu horaysiyo buuggu wuxuu sharxayaa in had iyo jeer gabadha hamadeedu ay fog tahay ciyaarahan badan maxaa sababaya loo leeyahay loo badiyo ciyaari ninka waxa laga yaabaa wixiisu inay iska dhow yihiinoo markiiba uu jaajka qaato laakiin dumarku waxay sheegaan ilaahay xikmadiisa inay ay fog tahay hawsheedu saa daraaddeed ciyaarahan badan xikmadda ku jirta ee looga leeyahay waxa weeyaan in gabadhii ma garanaysaa hawsheedii la soo dhoweeyo kadib baa lagu leeyahay 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo bal haddaad ka badin kartana ka sii fiican mar kastoo ciyaaruhu sii bataan bay ku leeyihiin hawshina way sii macaananaysaa midda kale waxaa la doonayaa gabadhii dee in labadii qof mid walba midka kale raali geliyo laakiin waxaa laga yaabaa haddaad meeshiin ku soo boodo hawshaadii markaad gudatana aad siday soomaali badan aynu samayno macnaa aad ka tagto dee waxaa laga yaabaa qofkii inuu cadaawad iyo xitaa ay ku qaato dumarkana xishood baa lagu abuuro iyadiina aanay ujeedadeedii caddaysan karin laakiin wuxuu ka hadlayaa buuggu in xitaa hawlaha markay tahay maadaama laysnoqday oo dee lamaano laysnoqday ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna inanku hawshan wuxuu uga baahan yahay inaanu ka xishoon baa la doonayaa bimacnaa jacaylkiisa kale iyaduna aanay ninkii ka xishoon midkii qawadaya xataa dee macnaa hawlahan uu yidhahdo dee saaxib hawsha saa u wad soo garan maysid ciyaaraha xataa waxaa ka mid a culimmadu sheegaan in xataa xamaamka dhexdiisa lagu ciyaari karo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha waxay leedahay markaanu wada maydhanayno wuu iga boobi jiray mise ana ka boobi jiray dacli mise ohan jiray iida rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ninka ugu mucaasharada badan ama ugu mucaasharada wanaagsan bay noqon karaa ama ugu dhaqanka wanaagsan calayhi salaatu wasalaam ee dumarka dhinac walba karaha la geliyay marka mawduucani waa mawduuc aynan aqoon laakiin waxaa badan ku duugan waxaa ka mid ah oo loo baahan yahay oo uu ka hadli doonaa buuggu in badan baad ku arki doontaa buugga anigoo dhowr meelood soo celinaya waxyaabaha ka horeeya ama ciyaaraha dhaxalka anigoo ciyaaraha macnaha hawshan galmada anigoo kolba ciyaaraha dhinac ka eegaya oo mar ka eegaya hadalladii fiicnaa xataa ciyaaraha waxaa ka mid ah bay ku leeyihin adiga oo kolba gabadhii yar eega oo eegmada ku yar eega nooc ma ciyaarihiiba ka mid waxaa ciyaari hadalkii jeecsanaaba ciyaari ka mid ah waxaa ka mid ah dhunkujooyinka iyo tataabashaasa ciyaari ka mid ah xataa dumarku waxay jecel yihiin buuggu sheegayaa inaad gabadhii intaad ku soo boodo aad yar qaniinto qaniinyadaa yar xitaa ciyaaraha ka mid bay ku leeyihin ha qaniinyo aan waxba u geysantahay sidii bahalka maaha noocu ma ciyaarihi ka mida wey waad yar qaniinaysaa oo ka soo garan maysid hawshii la macaaneeyaa la rabaa ma og tahay lama rabo jafaafki waxaa la yidhi nin baa beri islaan gabadh guursaday baa layidhi malaa waa dumarkeena hore dee markaasaa waxaa dhacday baa layidhi islaantii baa tiri waryaa dhegeyso ma intaa hoose mise qaarka sare adigu intaa hoose baad shaqo ku leedahay tiri xaggaa kale uma talaabi kartid waa xuduud baa noo dhaxaysa macnaa maxay leedahay jirka intaa sare way diiday in laga taabto
وخطر مقته ما قبل قبل أساعدهم كشيء يهاوله كلا يقولان سيكولته إسلام كانوا لكن صفة فاسم بوق هذا وحكى هذا بوق وشجيا إن بدنا نكسر عليا علماء وحي كير هذين كعيار الدا بلا أنا كاستل تاجو يجو عيارو أي فرق بديهين هذين رجع كلا كأجنو وحكم ده عيارها كعيار الدا إن حبين كترنك إسكاي حبين كترنك كعيار دي سعين كي تهاي إن وحاو بنان شرعا إنه ننكو قبل إنه كعيارته حبين كترنك نكيد شيخ أبو حنيفة الودي كورنا هذي قبل كعيارته حبين كترنك هدي لما أنا يسكع عياران بيدي متبا متككله وحيل والله أنا أقول لا أرى به بأسا بيد واحد يبغى ما أركو لو إحنا نسوي شيء أنا متشوف لا أرى به بأسا بيد وحن رجعني يا بيدي إنه خير كده السيادة وأجر أي كيل يعني أرن كاس إن وأرن بركة بنان إن معنا متبا متككله وحتى حبن كيس ترى كعيارك يا كعيار ده هذا قابل بدن بين نقطة كرتا كعيار ده وحنا نقول شدنا مثلا إن taataabashadii ama yar salaaxidii ama hawlahaas aynu uga jeedaa ay gabadhu ninka ku samayso ninkuna kadalika iyadan xubinkeedii taranka uu ku sameyn karaa hawlahaas oo diinta islaamku bimaana ma diidayso laakiin culimadu markay ka hadlayaan gabadh qofku lamaaniisa kale xubinka taranka afkiisa ma gelin karaa taas iyadoo mas'ala aynu si gaar ah uga hadlayno لكن إن لما أنو متبمت كلا حبن كيسة ترى كل عياري كرو الشرع الإسلام كم بديديو وحمسة وديدينا لما هيو وحكمتها عيارها كمتها أنت نهارشان اللي قد قلين يستجع وحيالا دين الإسلام كبرنا يسبب كمتها إنه متبمت كيسة كلا لما أني سكلا وكل عياري كرو حبن كيسة ترى waxaa iyaduna aad u muhiim ah sheegan ninku inuu gabadha ku ciyaari karo xubinkeeda taranka waliba xubinka aadka u xasaasiga ah sheegan waa xubinkan ay jeer marka la gudayo gabadha laga jaro culimadu waxa darkaysa iyagoo aad ugu qaabadhigayo kutubta markay ka hadlayaan oo leeyahay dareenkiisu leeyahay gabadha shucuurkeeda iyo dareenkeedu aad u kicinaya marka waxa soo dhan inagu ma naqaano ka Soomaalihan laakiin diinta islaamku waa arin banaan ceebna maaha wuxuu baa la diidan yahay mesela marka hawlaha laga hadlayo in Allahumma salli ala Muhammad uu ninka iyo gabadha ay ka sheekeeyaan wallahi waxaasaan xal qabanay waxaasaan sameeynay laakiin sharcan qofku inuu aqoon u ogoodo waxaan ma banaan tahay waxaan maxay ka tahay mas'alo kasta inaad ogaato cilman way kugu iman kartaa baa loo baahan saadaradeed buugeenan mas'alo kasta oo ku saabsan hawsha chiefka ama galmada ama waxyaalaha ka horeeya wax kasta isweydiin karto buugan waxaan ku dadaalay inaan ku soo ururiyo runtii waxa iyaduna runtii uu buugu ka hadlayaa oo qodobada uu tilmaamayo isaguna runtii kamid ah